howlgalkan oo ciidamada booliska iyo maamulka degmada Kaaraan ay ka sameeyeen waaxda jamhuuriyadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo qabteen gaari xamuul ah oo nooca TM-ka loo yaqaan oo lagu soo dhex qariyay qamro kaas oo ka yimid gobolada dalka. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiq Aadan Cali Doodisho ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgalkan ay ka sameeyeen degmada Kaaraan. waxaan maantay mar kale isugu nimid burburinta iyo ciribtirka cadad qamri ahaa oo ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo saldhigga Kaaraanba ay ku soo qabteen ayagoo ku jira howlahoodii caadiga ahaa oo maalinlaha ahaa oo loogu shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed ayaa la soo qabtay cadadkan qamriga ahaa oo lagu soo saaray ama lagu soo qariyay gaari nooca TM-ka ah oo ka yimid gobolada dalka. dadkii qamrigaas soo raray markii ay waayeen fursad kale oo ay qamriga magaalada ku soo galiyaan ama dalka ku soo galiyaan ayay ku soo dhex qariyeen badeeco u socotay u kala gooshaysay gobolada dalka. waxay ugu tala galeen in qamrigaas uu magaalada la soo galiyo oo ay ku halakeeyaan. waxaan hore u soo sheegnay in qamrigu uu yahay faktarka ugu daran ee sababa amni darrada. marka waxyaabo fara badan oo dalka ka dhaca oo ay muqaadaraadka iyo qamrigu uu sabab u yahay dhicitaankooda ayay jira. marka ciidanka booliska oo ka hortagay howlaha noocaas ahaa ayaa gacanta ku soo dhigay waaxda jamhuuriyadda checkpoint ciidanka booliska ay ku leeyihiin sarta koofiga ayaa lagu soo qabtay gaarigaas oo cadadkaas qamriga ah uu saaran yahay. waxaa xusid mudan in eedeysanayaashii ama dadkii la tuhunsanaa aan gacan lagu dhigin laakiin lagu raad joogo oo baaristoodu ay socoto walow ay baxsadeen laakiin warbixin fiican oo laga hayo la rajeynaya in gacanta lagu soo dhigo ilaa idinkiis. gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay in magaalada la soo galiyo qamrada. waxyaalaha dib u dhaca dalkeena keenayo in laga hortaga ay mudan in qof kasta oo wax gartana ay waajib ku tahay oo muwaadin Soomaaliyeed wadankeena waxa dib u dhigay waxyaalaha daraagiska ee maanka dooriyo nooc kasta ay noqdaan tii ugu darneed maanta dul taaganahay ma hado ka gaartay cadadka uu la eg yahay maanta daraagiska la soo qabtay meeshan ka muuqdo. waxaan leenahay waxaan ilaahay ka soo mahad ku leh ciidamada booliska oo hawshan har iyo habeen u taagnay u dabagalay meel kasta ay marayso maantay dalkan wax allaale waxa ka hor imaahay ka hortagayaan. waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin howl maaragtay loo baahan yahay howl qaran ay qabteen. afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa ugu digay dadka doonaya in waxyaabaha maanka dooriye ay soo galiyaan magaalada. runtii waa maalin kale oo guul u ah ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya iyo waliba bulshada ku dhaqan ee magaalada Muqdisho oo ay ka hortageen in waxyaabahan maanka dooriya ay gudaha magaalada soo galaan isla markaana lagu dhibaateeyo bulshadeena. waxaad dareemi kartiin in qofka markuu maanka doorsan yahay uu falal oo maskaxdiisa ogeyn uu sameynayo oo ku kici karo dambiye kala gedisan haddii ahaan lahayd inuu dad dhibaateeyo dilo haddii ahaan lahayd inuu wax dhaco. magaaladan Muqdisho runtii oo mar walba amnigeedii iyo bulshadeeda sida loo badbaadin lahaa ay u taagan yihiin har iyo habeenba laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan. bulshada kale iyagu isticmaalay waxyaabaha ammaanka dooriyana waxaan ugu digaynaa in aan marnaba la aqbali doonin qofka isticmaalay iyo qofka keenayaba inay marmarsiyo la yimaadaan sharcigana lala tiigsan doono. آمن حاج حسين محمد راضي هاي تلفزيون قرن الصومالية مقدشو.